Arrinta ugu xiisaha badan ee xuska 18 May ayaa ah inay Somaliland qorsheynayso inay xuska 18 May ku qabato duleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaas oo ay ku hareeraysan yihiin ciidanka militariga Somaliland. Afartii bilood ee la soo dhaafay waxay dagaalo culus ku dhex mareen duleedka magaalada Laascaanood ciidanka militariga Somaliland iyo ciidamo huwan ah oo diidan joogitaanka ciidanka Somaliland ee gobolka Sool. sidaan xogta ku helnay taliyaha guud ee ciidanka militariga Somaliland sareeye gaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada xuska 18 May ee ciidanka militariga Somaliland kaasi oo ka dhici doona taliska guud ee ciidanka Somaliland ku leeyihiin gobolka Sool ee lagu magacaabo Gooja Cadde. guddiga loo xil saaray qabanqaabada xuska 18 May ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka militariga Somaliland General Faisal Cabdi Bootaan. guddigan ayaa hadda ka wada gobolka Sool gaar ahaan saldhigyada ciidanka Somaliland ee ku yaala duleedka magaalada Laascaanood u diyaar garowga xuska 18 May oo ah maalintii lagu dhawaaqay Somaliland ka madax bannaan Soomaaliya oo leh calan ciidan iyo lacag gooniya. sidoo kale in sanadkan lagu qabto duleedka magaalada Laascaanood xuska 18 May waa mid macno weyn u leh Somaliland. sidoo kale inay Somaliland duleedka magaalada Laascaanood ku qabato xuska 18 May waa mid muujinaysa awoodda ciidan ee Somaliland ee taala gobolka Sool taasi oo rajo tiraysa kooxihii isku dayay inay qabsadaan taliska Gooja Cadde kuwaas oo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay la arkayay kumanaan ciidan ah oo sheegaya inay ku sii jeedaan Gooja Cadde isla markaana dhowr dagaal oo ay ku qaadeen ku jabay taasi oo hoos u dhigtay riyadoodii. sidoo kale 4 bilood oo uu dagaal ka socday magaalada Laascaanood inay Somaliland ku qabanayso xuska 18 May talisyadeedii ciidan ee ku yaalay magaalada Laascaanood waa fariin cad oo loo dirayo shacabka Somaliland iyo beesha caalamka taasi oo muujinaysa inay Somaliland si buuxda u maamulayso gobolka Sool kana adkaatay kooxihii dagaalka ku soo qaaday ciidanka Somaliland ee ku sugnaa magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda. dhinaca kalena xuska 18 May ee sanadkan ayaa ah mid xiiso gaar ah xambaarsan ayadoo magaalooyinka waaweyn ee Somaliland si weyn looga dareemayo u diyaar garowga 18 May taasi oo muujinaysa inuu jiro dareen bulsho oo intii hore ka xoog badan. sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay mar kale ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa sheegay inay halkaas ku nagaan doonaan ciidanka Somaliland oo aysan aqbalayn in xadkii caalamiga ahaa ee Somaliland loo bedelo xadbeeleed taasi oo sii xoojinaysa go'aanada Somaliland ee gobolka Sool. intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan kulanti dambe oo xiiso leh daawadayaal.